waxaa magaalada minneapolis ee gobolka Minnesota lagu soo gabagabeeyay koobkii Rabadaanka ee kooxo kala duwan ay ku loolamayeen. intii uu koobka socday ayay kooxihii ka qayb galay waxa ay soo bandhigeen hab ciyaareed dadkii daawanayay ee isugu jiray taageerayaasha iyo kuwo kale oo u soo daawasho tagay ay aad ula dhaceen. kooxda Siju ayaa ku guuleysatay koobka iyadoo goobtii lagu guddoonsiiyay koobka ay ka soo qayb gashay marti sharaf kala duwan oo uu ka mid ahaa duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry iyo mas'uuliyiin kale. Jamaal Cusmaan oo ah gudoomiyaha degmada 6 ee Minneapolis ayaa si weyn u bogaadiyay hanaanka wanaagsan ee koobka loo qabtay isla markaana dhalinyarada u booriyay in ay xoogga saaraan waxbarashada iyo isboortiska. maanta aad baa ugu faraxsanahay inaan nimaano xaafadda East Phillips aan gudoomiyaha ka ahay degmada 6 sharaf ay ii tahay Rabadaanka koobkii soo socday maanta in final ku taagan yahay final qurux badan baa la dhigaya halkan ka socda duqa magaalada noo yimid booliiskii baa nala jooga marka waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed farxadan iyo wanaagan waa wax dhalinyaradan u fiican isboortiga waa waxay ku madadaashaan oo ma taqaana waxyaalo badan ka sii jeediya marka waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaasha soo habeeyay meeshaan iyo community isku timid maanta aad u qurux badan waxaan dhahayaa ciid wanaagsan. kaanuu oo ah mas'uulkii lahaa hindisaha iyo qabashada koobka Rabadaanta ayaa kooxihii iyo martidii kale uga mahadceliyay gacanta ay ka siiyeen qabashada waxaana sidoo kale munaasabada ka hadlay Cabdirasaaq Cali Boos oo ah madaxa ururka Waalid hadaladiisana waxaa ka mid ahaa 20kii team ee koobkan ciyaaray 20kiinaba winners baatiin koobkan waxaa loogu talagalay in dhalinyaradu ay isku dhex galaan caafimaad ay ku ciyaaraan maxaan ku raahdaa aanay dambi gelin waxbarashadooda ay sii wataan intaas ayaan idinku encourage gareynaynaa. maanta waxaa nala jooga Jamaal Cusmaan waa city councilka xaafadan laga doorto waa nin Soomaali ah maxaan ku raahdaa mayorkiina haday waa noo yimid laakiin waqtiga ciriir ahaa marka uu baxay shaqo kale lahaa aad buu u mahadsan yahay idinkana aad buu u mahadsantiin خاصة وحنا آد وقوم هالنقيا كوحدة دلنيرة اللي رئيستي فيليبس أو مانتا لبع عياري لبع عيار وناكسن صوبان دقي هدرنا وحنا بحنا كوبابكي marka dhinaca kale abaalmarino kala duwan ayaa la siiyay qaar ka mid ah ciyaartoydii loo aqoonsaday in ay yihiin kuwii ugu fiicnaa intii uu tartanka socday sida ciyaaryahankii ugu fiicnaa goolhayihii ugu fiicnaa kii ugu gool dhalinta badnaa iyo macallinkii ugu wanaagsanaa. intaasi kadib ayaa waxaa dareenkooda wax aan ka weydiiyay qaar ka mid ah ciyaartoydii koobka ku guuleysatay. horta maxaa la dhahaa Maxamed Yare maxaa ku magac dheer Ismaali ninkan waa ana waxaa la dhahaa Maxamed waxaa ku magac dheer Cisco maanta maxaa ku faraxsanahay horta thank you for coming Jamaal Azman horta tiimaal badan oo soo baxnay finalkana maanta ku guuleysana marka farxada noo tahay dhalinyaro anaga nala dhan inaan la ciyaarno koob ka qaadno marka of course dadaal fiican sameeyna waxaan dadaalana kamid tahay marka of course waa ku faraxsanahay inaan reeno maanta maxaa la dhahaa waa ku faraxsanahay wax badan aan soo dadaalnay soonkana ku dheeleynay gaajo iyo wax walba waqtiga soo gelinay dhalinyaradii isku keenay maxaa la dhahaa oo intaas waqti aan soo gelinay alxamdulillah si qurux badan oo noogu dhamaaday waa soo dadaalnay kooxdii oo waa ku guuleysatay noqonay oo nasiib ku yeeshay maxaa la dhahaa waxa u madnaqeynaa waa shaqeysana waxa u madnaqeynaa madaxweyne oo maxaa la noo imaaday oo na soo taageeray maanta mayorkii iyo qof walba noo imaaday oo nala qaybtay waqtiga nala qaatay. dadweynihii u soo daawasho tagi jiray ciyaartoydii ka qayb gashay ayaa isku raacay isboortiska inuu yahay isku soo dhaweeyaha bulshada iyo habka ugu wanaagsan ee jiilka soo kacaya ay uga badbaadi karaan maandooriyaha iyo falalka kale ee halista ah. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.